to Rwanda. Welcome to Rwanda. Welcome to Rwanda. Rwanda mid ka mid ah wadamada ugu yar ee ku yaala bariga qaaradda Afrika magaaladiisa caasimaduna waa Kigali. Paul Kagame madaxweynaha dalka Rwanda ayaa amar ku bixiyay in dalkiisa si degdeg ah looga eriyo 18 qof oo Shiinees ah. Nimankani ayaa lagu eedeeyay inay ku tunteen sharci iyo xuquuq madaniyiinta dalkaasi kadib markii ay dad muwaadiniin Rwanda u dhashay ay saacado badan oo dheeri ah ugu shaqeysteen sidii adoomadii, waxaana lagu wargeliyay inaysan abi dalka dib ugu soo noqon karin. Madaxweynaha Rwanda oo arrintaasi ka hadlayay ayaa yiri tani cashir ha idin noqoto na xushmeeya, waan idin xushmeynaynaa waana soo dhaweynaynaa qof kasta oo qalbi wanaagsan, balse dib dambe u aqbali mayno in qaaradeena na lagu adoonsado. Afrika waa qaarad nabadeed, mana u dulqaadan doonto sinjiqursi. Dalkan waxaa leh Afrika iyo qof kasta oo wanaag nala maagan, waana la soo dhaweynayaa, ayuu yiri madaxweyne Paul Kagame isaga oo xanaaq ka muuqdo. Rwanda waxay ka mid tahay wadamada hoggaanka wanaagsan, xasiloonida siyaasadeed iyo kobaca dhaqaalaha ugu horeeya Afrika sanadihii ugu dambeeyay. Horumarka la taaban karo oo ay Rwanda gaartay ayaa waxaa ka mid ah in dalka Rwanda ay heshiis dhanka nukliyeerka ah oo korontada laga soo saarayo ay la gashay dalka Ruushka si ay sare u qaaddo awoodeeda wax soo saarka. Heshiiska ay Rwanda la gashay Ruushka ayaa keenaya in warshad ku shaqeysa tamarta nukliyeerka laga dhisayo dalkaasi. Ruushka ayaa sidoo kale Rwanda ka dhisaya xarun lagu barto cilmiga nukliyeerka iyo tiknoolajiyadda oo laga dhisayo Kigali Nuclear Science and Technology. Dhanka kalena Rwanda ayaa cirka u gantay satellite la yiraahdo Ikirikoza, kaas oo loogu talagalay inuu xiriirka internetka gaarsiiyo ardayda ku nool jasiiradda Nikombo Island ee harada Lake Kakuva. Rwanda ayaa doonaysa inay dalkeeda ka haqabtirto adeegyada internetka oo casrigan muhiim u ah nolosha. Dayax gacmeedkan oo la ganay 26 February sanadkii tagay ayaa durba keenay natiijo aad u wanaagsan iyada oo ay u hayeen ardayda dugsiyada miyiga iyo meelaha fogfog ee Rwanda.